Warar hoose oo ay helayso shabakadeennu waxa ay sheegayaan inay socdaan dadaal lagu sii daynayo wadaadka lagu magacaabo Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuumansuur oo ka mid ahaa musharaxiintii u taagneyd qabashada madaxtinimada Koonfur Galbeed Soomaaliya horeyna uga soo goostay maleeshiyada Al-Shabaab. Mukhtaar Roobow ayay dowladda Soomaaliya kasoo xirtay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay 13kii bishan aynu ku guda jirno kadib amar la sheegay inuu kasoo baxay dowladda dhexe ee Soomaaliya. Magaalada Muqdisho waxa uu Roobow kula kulmay maalmihii ugu dambeeyay xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiin kuwaasi oo ka arrinsanayay sii deynta Mukhtaar Roobow. Ilo ku dhow xildhibaanadan ayaa sheegaya in laga yaabo in saacadaha iyo maalmaha soo socda in xorriyadiisa uu dib u helo. Waxaa jira shuruudo dowladdu ku xirtay sii deysmada Mukhtaar Roobow Cali Abuumansuur. Haddaba wararka aynu anagu helayno waxay sheegayaan in Roobow uu ka dhaga adeegayo shuruudaha loo soo jeediyey oo ay ka mid ahaayeen sida aanu wararka ku helayno in magaalada Baydhabo uusan ku laaban si halkaasi uusan qalqal siyaasadeed kaga abuurin. Dowladda Soomaaliya ayaa ka cabsi qabta in haddii la sii daayo Roobow uu qas iyo fowdo cusub ka bilaabo magaalada Baydhabo oo xilligan madaxweyne cusub maamulka Koonfur Galbeed loogu dooray. Wararkaas wixii ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan. Fadlan subscribe ku qabo si aad u rukumato wararkayaga.